بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم sirta iyo muhiimadda ku jirta sanadka 2023 ee u dhaxaysa dalka Turkiga iyo qaaradda Yurub maxay tahay maxay u ciseeyaan Turkigu sanadkan uguna calan walaynayaan halkaas oo dhinaca kalena ay cadho ka muujinayaan waa taariikh istaahisha in aan wax ka baranno ee su'aalahan jawaabahooda iyo in kaloo badanba kaga faa'iideyso muuqaalkeennan sanadkan aynu ka hadlayno ee 2023 ayaa wuxuu soo gabagabeynayaa cunaqabatayn iyo bahdilaad la saaray dalka Turkiga muddo gaadhaysa 100 sano oo buura taasoo ay saareen dawladaha reer Yurub siiba Ingiriiska Jarmalka iyo Faransiisku inkastoo Jarmalku mararka qaar ay isku xulafo ahaayeen Cusmaaniyiinta iyaga oo ka mid ahaa hormuudkii dawladihii xulafada ahaa ee isu bahaystay dagaalkii koowaad ee adduunka in ay burburiyaan dawladdii Cusmaaniyiinta oo adduunka ka talinaysay muddo 500 oo sano ah gaadhayna dhowr qaaradood waxaana heshiis lagu saarayo cadaadis lagu qasbay guud ahaan muslimiinta iyo dawladdoodii 500 ee sano soo taagnayd gaar ahaan deegaanka iyo ummadaha Turkiga oo islaamka hoggaan u ahaa waagaas marka aad Cusmaaniyiin maqashanaha u qaadanin carab ee waxay ahaayeen Turki waayo diinta islaamka lama kala xigo muslimiinta oo dhamina waa wada walaalo caasimadii iyo madaxtooyadii ugu dambeysay ee dawlad muslimiinta oo dhami wada leedahay maadaama iyagu ay gacanta ku hayeen bartilmaameedka u weyni waxa uu noqday dalka Turkiga iyada oo la iska hor keenay iyaga iyo shucuubta kale ee kala gedisan ee muslimiinta haddaba hagardaamooyinkii ay la kulmeen Turkigu waxa ka mid ahaa heshiiskan cunaqabataynta ah oo laga saxeexay inay ku jirayaan muddo 100 sano ah haddaba sanadkan aynu qaadaa dhigayno waa 2023 ahna halhayska Erdogan ayaa waxa uu yahay sanadka ay ka baxayaan cadaadiska siyaasadeed ee intaa leeg inkastay taariikh ballaaran tahay si aad iyo aad u kooban waxaan uga hadlaynaa 3 arrimood oo ka u horeeya yahay wixii dhacay ka labaadna waxaynu kaga hadlaynaa heshiiskani meelaha uu ka naafaynayay iyo qodobada xasaasiga ah qodobka saddexaad waxa aynu kaga hadlaynaa maxay Turkigu qabsanayaan waagan cusub ee u bariyay maxaan markii hore loo ogolayn oo ay u madax bannaanaanayaan hadda kadib qodobka koobaad haddaynu soo qaadano dawladdii muslimiinta ee 500 ee sano adduunka ka talinaysay gaadhayna qaaradaha kala duwan iyada oo cadawgeedu ay ugu magac dareen ninkii gaboobay ee xanuunsanayay waxa ay caleenteedu caddaatay agagaarkii dagaalkii koowaad ee adduunka dhanka bari waxa ka holciyay Ruushka galbeedkana waxa hilfaha u laalaabay dawladaha Yurub afarta jihaba maalinta ka dambaysa waxa gamcaheeda ka sii baxayay dhul weynihii baaxadda lahaa ee ay maamulaysay waagaas inkasta oo baawarkeedu 100 sano shaqaynayay balse dabkeeda ku baktiyay sanado yar oo kooban dawladdii intaasoo qaaradood maamulaysay waxa lagu soo koobay Turkiga maanta aynu naqaano si xuduudkiisa loogu ammaan geliyana waxa lagu qasbay in uu si shuruud la'aan uga tanaasulo oo aanu sheegan dhulweynihii uu ku lahaa dhowrka qaaradood qodobka labaad waa meelihii laga abbaaray waxana ka mid ah in la baabi'iyo dibna aan loo soo hadal qaadin dawladdii Cusmaaniyiinta iyo dawlad kale oo islaami ah oo muslimiinta midaysatoona muslimiintiina waxay ka dhigeen maska madaxa ayaa laga dilaa waayo waxaan taa u leeyahay
turkiga ayaa xilligaas ahaa meesha looga taliyo muslimiinta. sida oo kale waxaa lagu amray in waddanka laga caydhiyo suldaankii iyo qoyskiisiiba. sidoo kale waxaa qodobadaa ka mid ahaa in turkiga laga dhiso dawlad cilmaani ah, meeshana laga saaro ta islaamiga ah. waxa kale oo ka mid ahaa in dawladahan yurubiyaanka ah ee ku guulaystay dagaalku ay qaataan oo daabushaan dhammaan wixii hanti iyo lacag ah ee ay maamuli jirtay dawladdii baaxadda weynayd ee cismaaniyiintu. hantidaasi inta ay leekayd waxa aan ka qiyaasi karnaa marka laga yimaado afrika iyo bariga dhexe iyo aasiya inteeda kaleba. yurub oo keliya waxaa gacanta ugu jiray gobolka balkaanka oo ay ku yaallaan dhowr iyo 10 dal. tusaale ahaan waddanka bosniya waxa kale oo gacanta ugu jiray dhowr iyo 10 dal oo kale oo ku yaalla gobolka qawqaas oo isagu ku yaalla halka kala qaybisa labada qaaradood ee aasiya iyo yurub. waxaana ugu caansan georgiya, osetiya iyo shiishaan. sidoo kale qodobada lagu qasbay waxaa ka mid ahaa in dalka turkigu shidaalka uu u baahan yahay keliya uu debadda kala soo dego, balse aanu kala soo bixin ceelal shidaal dalka gudihiisa amase ciiddooda hooyaba. haddii laga maarmi waayana waa qadar aan ka badnayn 10%. waxa kale oo laga ansixiyey in kanaal istanbul ama kanaalka bosbaras uu yahay kanaal caalamiya, doonyaha marana wax cashuura aanay ku lahayn, xeebaha dalkoodana qaar baanay u madax bannaanayn. waxaasoo dhan waxaa soo gebagabaynaya oo meesha ka saaraya sannadka 2023 insha allahu tacaalaa qodobkii ugu dambeeyey haddaan soo qaadanno in uu sannadkaa dhammaanayo turkigii qadiimka ahaa ee aan u madax bannaanayn waddankiisa oo dhan. waxaana dhalanaya turkiga cusub oo dhulkooda kala soo baxaya khayraadka shidaalka, kana talinaya aayaha kanaalka bosfaras, iyaga oo ceelal iyo marinbiyoodyo cusub ka samaynaya dhulka u dhexeeya badda marmara iyo badda madow. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. waa soo diyaarintii cabdilaahi aftahan. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkayaga subscribe garee jeliska ama gambaleelkana raaci si aad ula socoto marka uu ku soo dhaco muuqaal cusubi. commenti, like iyo sharena waa habka aad kula wadaagi karto ehel iyo asxaabba. annagana waa noo shidaal iyo dhiirigelin. nabadgeliyo.